kusoo dhawaada barnaamijkeennii wacnaa cunno karinta ahaa ee la magac baxay cunnadii wacneed aad ka daawanayseen Somali Food Television. Somali Food TV waa television cusub oo Soomaali oo cunno karin aad ka daawan doontaan meel alla meesha aad joogtaan. waxaad ka daawanaysaan Somali Food TV, waxaad ka daawan kartaan YouTube-ka, waxaad ka daawan kartaan maaragtay televisionka SPNN, waxaad ka daawan kartaan CTV. دابا أنا هو شيف عبد العزيز عاو محن إيدين هيا عاو محن إيدين هيا هبكو عن إلوسو بيو كريم كارميل. كريم كارميل هو ومعمعان ككوبن كريم عانو سكر وكن يا كارميل أنت سأيو كوبن هاي ستوف توب كوالو سوبين كريها فورنا دنا ولا لجلين كريها حتى تركز واحد سوبين إسا كريم كارميل كي كور ستوف توب أيات كوسوبين كرتا كدنا ويل أيات بيت كوشوي مركز سوبيسد ويل أيات بيت كوشوي سا markaasaad maaragtay kastarkii cream caramelkii aad suubisay maaragtay ayaad maaragtay dhexda ka gelinaysaa oo pianmeqi ayaa la yiraahdaa dhexda ayaa ka gelinaysaa waa daboolaysaa dabka ayaad u gaabinaysaa waa suubin kartaa haddii kalena waxaad ku dhamaystiraysaa ku suubinaysaa ovenka. Cream caramel waxa uu ka kooban yahay caano, wuxuu ka kooban yahay vanilla, wuxuu ka kooban yahay ukun, wuxuu ka kooban yahay sokor, wuxuu ka kooban yahay cherry, wuxuu ka kooban yahay mandarin, wuxuu ka kooban yahay saffron, pinch of saffron, waxa uu ka kooban yahay vanilla, wuxuu ka kaloo haddaan rabno caramel, haddaan rabnona maple syrup. meesha maple syrupka aad kaga daraysid waxa aad ku dari kartaa strawberry. waxa aan soo qaatay digsi, waxa aan ku shubayaa caano, sokor iyo saffron. waan isla karkarinayaa. marka ay si fiican u kululaadaan oo sokortii ay qasmato waan ka daminayaa dabka. waxa aan ku darayaa vanilla. digsi ayaan waxa aan ku shubtay half bakeeri sokore iyo 3 qaado oo biyo. waan isla karkarinayaa. si aayare ayaan u walaaqayaa ilaa ay sokorta si fiican u dhex gasho biyaha. kadibna waan karkarinayaa ilaa ay biyihii iyo sokortii ay ka madoobaadaan oo ay noqdaan caramel. biyaha iyo sokorta marka ay si fiican u karkaraan oo ay caramel noqdaan, inta aysan sokortii aad aysan u madoobaanin oo ay maaragtay xoogaa dark color ay tahay, waan ka qaadayaa. mar alla marka aad caramelka aad suubisid waxa habboon isla markii aad ku shubtid remekiniskii iyo weelashii loogu talagalay oo aad maaragtay foornada la gelinaysid. haddii kale haddii digsiga aad ku dhaaftid waxa weeye caramelka wuu dhegayaa wuuna adkaanayaa. waxaan si fiican u garaacanayaa 5 xabbo oo ukune iyo 4 xabbo oo egg yolkise oo ukunta jaallada ah. si fiican ayaan u garaacayaa. kadibna waxa aan yeelayaa caanihii qandaca ahaa ayaan ukunta ku darayaa. si aayare xoogaa ayaan ku shubayaa. tempering ayaan kaga dhigayaa. kadibna waa ku garaacayaa haddana mar labaad ayaan waxaan ku darayaa caanihii oo wada dhan ayaan waxaan ku darayaa ukuntii iyo caanihii waa miirayaa. kadibna ovenka waxa aan geysanayaa 350. waxa aan soo qaatay weel, waxa aan ku shubayaa biyo. waxa aan soo qaatay weel, waxa aan ku shubtay biyo kulul oo aan karkariyay. ovenka ayaan gelinayaa. waxaan kale aan soo qaadanayaa remekiniskii oo aan ku shubay caramelkii. ovenkii ayaan dhexda ka dhigayaa. kadibna waxa aan yeelayaa caanihii caramelka iyo ukuntii aan isku daray oo aan miiray ayaan soo qaadanayaa. waa ku shubayaa. waxaan isla beegareynayaa 30 daqiiqo.
noocan waa nooc ka mid ah cream caramelka oo aan ka suubiyey meeshii aan caramel kaga dari lahaa waxa aan ku daray maple syrup kadibna waxaan ku shubay caanihii creamkii iyo caramelkii iyo saffraankii isku jiray ayaan ku daray kadibna waxa aan ku darayaa pineapple waxa aan foornada gelinayaa 30 daqiiqo wuxuu ku soo baxayaa wax aad iyo aad u fiican u macaan ovenka ayaan gelinayaa waxaan beegareynayaa 30 daqiiqo waxaan kaloo aan soo qaatay remikiniski waxa aan dhexda ka dhigayaa strawberry jam ama strawberry preserve ayaan ku darayaa waxaan kaloo aan yeelayaa buskud ayaan dhexda ka gelinayaa buskudka nooca loo yaqaano Maria oo Soomaalida aad iyo aad u cunaan ayaan maaragtay dhexda ka gelinayaa caanihii iyo creamkii ayaan ku darayaa kadibna waxa aan yeelayaa buskudkii ayaan soo qaadanayaa dhexda ayaan ka dhigayaa haddana buskud kale ayaan haddana dhexda ka dhigayaa 2 buskud oo kale waxa aan soo qaatay orange mandarin oo aan biyihii iyo dhacaankii ka miiray waa ku darayaa buskud ayaan haddana u dhaxaysiinayaa 2 xabo buskude kadibna waxa aan ku darayaa ama aan ku shubayaa caanihii creamka ahaa ovenka ayaan gelinayaa 30 daqiiqo kadibna waan qaboojinayaa 2 saac waana gedinayaa cream caramelkii waan gediyey waa u jeedaan waxa uu ku soo baxay si aayare ayaan maaragtay u gediyey maasha Allah wuxuu ku soo baxay waa u jeedaan sooskiisii oo caramelka ahaa dhexda ayaan waxa aan ka dhigayaa cherry gaduudan ayaan ku qurxinayaa dhinaca kalena waxa aad u jeedaan haddaan gedinaya dhinaca midigta ah pineapple-kii iyo maple syrup-kii waxaa dhinaca kalena u jeedaa gidida aan ku goynayaa strawberry-gii oo aan dhexda ka saaray kadibna waxa aan ku darayaa orange mandarin iyo cherry ayaan ku qurxinayaa dhinaca kore oo bidixda ah dhinaca hoosena buskudkii Maria ayaan waxaan ku qurxinayaa cream caramelkii iyo cherry-gii dhinaca kale oo bidixda u hooseeyana waa cream caramel kaliya aan haba yaraatee waxba lahayn midka u koreeya oo dhinaca midigta aad daawanaysaan waa pineapple-kii waxa aan kaloo ku daray dhinaca bidixda ka dhigay yogurt ما شاء الله كريم كراميل عادي strawberry iyo maaragtay orange mandarin iyo buskudkii maaragtay Maria ahaa oo aad iyo aad ugu qurxiyay waa u jeedaan buskudkii Maria ahaa dusha aan ka saaray iyo cherry ay asagana aan maaragtay dusha ka sii saaray aan ku sii qurxiyay noocan waa u jeedaan 4 nooc ayaa idin suufiyay 2 nooc oo saffron cream caramel iyo 2 nooc oo maaragtay cream caramel la soco wiiga soo socda barnaamijyo aad iyo aad xiiso u leh inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh